wuxuu taleefankayga ka wacay aabahay kadibna codkiisa ayuu weyneeyey oo wuxuu ka dhigay sida kombiyuutarka oo kale. Aabahay ayaa ku yiri gabadhaydii ku aaway. Markii uu maqlay codka aabahay ayuu yiri gabadhaada haddii aad u baahan tahay ayadoo nabad qabta inay kuu timaado booliiska la xiriirin, waana inaad anaga naga warsugtaa. markaan ku soo wacno ayaan kuu sheegaynaa waxaan kaa rabno. كلمة مرحبا. waa idin salaamay. magacaygu waa Sumaya. waxaan rabaa inaan idinkaga sheekeeyo wixii igu dhacay sanadkii hore ee lasoo dhaafay, khaasatan xilli ay samar ahayd. waxaan ku balansanin aniga iyo waalidkeen inaan isugu nimaano guri noogu yaalay keynta dhexdeeda. aniga waan soo daahay, waalidkaygana waa iga soo hormareen oo aniga kaliya ay sugayaan. aniga wax kale kuma aana soo dahin, shaqadeyda ayaan ku soo daahay. mid ayaan ka hilmaamay, aniga waxaan ahay dhakhtarad, weliban waxaan ku takhasusay qaliimada guud. shaqadeyda ayaana sababta u ahayd inaan ka soo daaho waalidkayga oo isugayay. balse shaqada markii aan soo dhameeyay ayaan soo baxay anigoo isku dayaya inaan soo gaaro waalidkayga. balse intii aan wadada soo socday ayaan waxaan arkay wiil dhulka yaala, weliban aad moodo shil inuu galay. waan istaagay anigoo xoogaa yar baqaya, balse waxaan ahay dhakhtarad, uma adkaysan karo dad dhibaataysan. waan soo degtay kadibna waxaan rabay inaan fiiriyo xaaladiisa. waan fiiriyey wiilku wax dhaqdhaqaaqa ma uusan lahayn. waan gediyey kadibna waxaan isku dayay neeftiisa inaan baaro. dhegteyda markii aan usoo dhaweeyey ayayba bilaabay inuu ila hadlo oo waaba qof caadi ah oo wax dhibaato ah aanan qabin, kaliya rabay aniga inuu idabo. baxarka waad ku jirtaa ayuu yiri. waan isku naxay. intii aanan ka tegin ayaa hal mar waxaa soo baxay 3 wiil oo kale, kadibna hareerahayga ayay soo istaageen, gacmahana way iga xirxireen. mid ayay ka mid ahay afka iga xiray, madaxana bac ama jawaan madow ayuu ii geliyey si aan u qaylinin oo dad i badbaadiyay aysan ii helin. kadibna 2 ka mid ah ayaa la ii soo dhiibay oo ayaga ayaa soo kaxeeyey 2 garbood intay iga qabteen oo meel aan la garanin ayay ii soo wadaan. runaantii kama aanan warhaynin meeshaan socdo iyo siday u eg tahay iyo waxyaabaha hareerahayga ah. waxaan maqlay codkooda oo dhagahaygu way furan yihiin. 2 wiil way sheekaysanayaan, waxbayna ka sheekaysanayaan. gabadhan meel ayaan ku xiranaynaa si aan waalidkeeda uga helno madax furasho iyo lacag. aniga kuma aanan waafaqin hadalkaas, sababtay tahay waxaan ku heshiinay kaliya gawaarida inaan dhacno, gaarina waan helnay. gabadha maxaan ku haysanaa? adiga dabaal miyaa tahay? gabadhan gaari qurux badan oo qaali ayay wadataa. waxay u muuqataa inay ka dhalatay famil lacag leh. familkaasana dhaafinin, waa fursadna soo martay, lacagtaasna ma naga fiiso. waan arki doonaa. nimanka sida ii soo wadeen qol ayay keeneen, kadibna kursi ayay ugu fadhiisiyeen. xoogaa yar markii aan fadhinay ayaa albaabka waxaa noo soo galay 2 nin kale. waxayna bilaabeen inay ka doodaan sidii aniga ii yeeli lahaayeen iyo waxay igu samayn lahaayeen. aniga waa maqlayaa siday u qaylinayaan. mid ayay kamid ayaa diidan aniga inay madax furasho iga qaataan. wuxuuba kasoo horjeeda in halkan la igu soo xiro, waana midka kaliya ka fikrad duwan. dood dheer kadib midkii mucaaradka ah ee diidanaa in halkan la igu soo xiro way ku qanciyeen. kadibna mid kamid ayaga ayaa ii imaaday oo waxa uu yiri yaa ku dhalay ii sheeg aabaha magaciisa sheeg. kadibna mid ayay kamid oo kale ayaa soo booday oo waxa uu yiri waxaa dhalay milyaneerka la wada yaqaano ee caanka ah. waaw, maanta maalin iga farxad badan ma jirto, waa maalintii aan taajiri lahayn. yuusuf oo adigana dabaalnimada ku farax, waa kana hadda lacag ayaan helaynay. maxaa u diidaysa maanta oo inaan madax furashaan weydiisano gabadhan? waryaa hilmaamin magacyada dadka in la sheego waa mamnuuc. kadibna waxa uu iga furay wixii madaxa iga xirnaa, afkiina waa iga furay isagoo su'aal ii weydiinay. ma u malaynaysaa aabbaha inuu ku jecel yahay welibana lacag madax furashaa uu kaa dhiibayo? indhaha ayaan kala furay oo mugdi badan ayaan ku jiray. hareeraha ayaan fiiriyey. waxaan isku dayaa inaan aqoonsado meesha aan joogo. waa guri qadiim ah oo xilli hore la dhisay. nimankii soo afduubtayna waa 4 nin. hareerahayga ayayna taagtaagan yihiin. ma hadlin oo uma aanan jawaabin, afkaygana ma aanan kala furin. hogaamiyahooda ayaa hadlay oo waxuu yidhi taleefankeeda ii dhiib, isaga ayaa wax walba inoo sheegaya. kadibna waxuu bilaabay inuu waco aabahay oo si fudud ayuu ku helay nambarkiisa. kadibna waa uu garaacay. taleefankana waxa uu saaray cod waaweyn si aan loo aqoonsan codkiisa. aabihii taleefanka markuu qabtay ayuu yiri gabadhaydii ku caaway. wiilkii markuu xaqiiqsaday in odaygu uu yahay ayuu yiri gabadhaada anaga ayaa gacanta ku haynaa. haddii aad u baahan tahay ayadoo caafimaad qabta inaad aragtid ha isku wicin booliiska, waxaan kaa rabnani waan kula soo xiriiri doonaa. kadibna taleefankii ayuu jaray. mid kale ayaa soo booday ku yiri taleefanka maxaad u damisay? waxba ma aadan weydiinin, waxaan rabaa cabsi inaan ku beero. hadda hore haddii aan ka weydiiyey lacagta waxaa laga yaabaa booliis inuu raadiyo, kadibna uuna soo raadiyo anaga. waad khaldan tahay, tani waxay siinaysaa fursad isaga. kadibna waa uuna soo raadinayaa isagoo weliba booliis wata. nafsadeeda miyaad baxar gelinaysaa? nimankii waxay bilaabeen inay buuqaan oo midba midka kale uu caayo oo ku qayliyo. war adiga ninkii hogaamiye kaa dhigtay ayaaba kaa xun, hadda kadibna hogaaminka waa kaa qaadaynaa. way isku bootayeen 2 nin, waxayna bilaabeen inay gacanka hadalka gaartay sheekadii oo dagaal weyn ayaa dhexmaray. kadibna banaanka ayay isula baxeen oo banaanka ayay aadeen. kadib maxaa dhacay? 2 kalena way raaceen. anigoo meesha iska fadhiya dagaalkoodiina maqlay iyo jugta isku garaacayaan ayaan maqlay rasaas
ama xabad la isku riday. Waan isku naxay, maanta maxaa dhacay ayaan isweydiinayaa. Waxyar kadibba nimankii way soo galeen, balse mid ka mid ah ayay wadaan oo dhaawac ah, welibana garabka ay xabad uga taalo. Gabadhii dhakhtar ayaad ahayd soo maahan, hadda ayaan kaa rabnaa ninkan inaad u badbaadisid. Aniga gacmaha ay iga furfureen, kadibna waan soo istaagay. ninka waa uu qaylinaya oo xanuun zaid ayaa haya. Ma haysan qalabka lagu fidiyo gurmadka degdega ee first aid-ka. maya ma hayno waxaas oo ma isticmaalno. hadaan laga maarmaynin farmasiyaha ayaan ka doonaynaa, sida ugu dhaqsiyaha badan waan kugu keenaynaa. taas waa waqti dheer, waxaan laga yaabaa ninkan dhiig bax inuu dhinto. mindi iyo maro nadiif ay keen. way soo raadiyeen mindi iyo maqas iyo wax bay keeneen. kadibna waxaan dhahay madaxa iyo gacmaha ka qabtay lugaha si uusan u nuuxnuuxsanin. anigana waxaan bilaabay inaan ka soo saaro rasaasta oo xabadii ayaan ka soo bixiyay, banaanka ayaana keenay. kadib dadaal dheer waan ku guulaystay xabadda inaan ka soo saaro. waxaan ku dhahay waxaan u baahanahay gacmaha meel aan isaga dhaqo oo gacmahayga dhiig ay leeyihiin, dhiigana ma arki karo. hogaamiyahooda ayaa Yuusuf ku amray inuu aniga banaanka ii kaxeeyo, ceelkan uu iga soo dhaqo. ceelkii uu ku yaala guriga dhabarkiisa dambe ayaan tagnay. kadibna waxaan bilaabay gacmaha inaan iska dhaqo oo wadaan uu ku soo daray ceelka ayuu iga dhaqay. kadibna waxuu yiri saaxiibaday ninka dhaawac ay ku mashquulsan yihiin, fursad ay haysataa ee ka carar halkan, nafsadaadana la baxso, gadaalna soo fiirinin. maxaa sidaan u samaynaysaa? sababtay taa waa ka fikir duwanahay, mana ku raacin in madax furasho laga qaado ama dhib lagu geysto adiga. laakiin markaa fakata kadib wixii kugu dhaco aniga waxba igama eedaysid. adiga ma waxaa tahay Yuusuf ee kasoo horjeestay nimankan fikirkooda? haa waa aniga, laakiin magaciigana iska maanta ayaan kaa codsanayaa. waan u mahad celiyey. kadibna waa soo cararay. meesha waa meel kayn jiq ah, welibana geedu ay ku badan yihiin. mugdiga ayaa isaacidayay oo habeen ayay ahayd, balse waxaan maqlay raggii codkooda oo aniga isoo eriyanaya. orodkuma aanan dhammayn, waan isqariyey oo keenta ayaan ku dhuntay. ninyahow Yuusuf waa nagu soo qalday, ninkaas tuug ma noqon karo. waa nin qalbi wanaagsan oo qalbi nadiif ah. hadda waxa uu sameeyey bal fiiri. inaan marka hore kusoo darno kooxda ayaa qalad ahayd, balse hadda waan fashilanay. gabadhana wayna sheegaysaa waa inaan bedelnaa meesha aan degannahay. markaan xaqiiqsaday nimankii inay mirqeen ayaan ka soo baxay meeshii aan isku qarinayay. kadibna waan soo baxay anigoo raadinaya wadada loo aadayay guriga aan u socday. gurigeena meesha kama uusan fogeyn. waxyar kadibna waan bagaaray anigoo si dhaqsiyaha ku socda. aad baan u daalanahay, waana naxsanahay. albaabkii ayaan gargaraacay. aabba ayaa iga furay. aad ba u farxay. kadibna laabta ayuu igeliyey. anigana farxad daraadeed waan la ilmeeyey. gabadhaydii maxaa kugu dhacay oo dhibtaan oo dhan yaa ku gaarsiiyey? dhammaan familka way soo kala carareen ayagoo su-aalo badan iga weydiinaya waxa igu dhacay. hadda waan daalanahay, waxaan rabaa inaan nasto. waxyar kadib aanay kaga sheekeynaya waxa igu dhacay. haddana waa alxamdulilah, mar haddii aan soo badbaaday. gabadhayda taleefonkaaga nin ayaa igala hadlay, welibana u ekaa nin tuug ah. booliiska ayaan wacayaa si loo soo qabto dambiilaha. aabba maya, sidaa ha samaynin, waan ku baryayaa. kadibna aabba ayaa igu dhahay maxaa dhacay gabadhaydii? sababtay tahay nimankaas waxaa ka mid ah nin qalbi wanaagsan oo daacad ah oo Yuusuf lagu magacaabo. yaa waaya wiilkan gabadhaydii waa wiilkii isoo badbaadiyey, ayaga ayuu ka tirsanaa, balse ma ogolaan in dhibaato la ii geysto. gabadhayda ilaa waa in la ciqaaba oo tuuganimada ay sameeyeen laga ciqaabaa. kadibna waxaan ku dhahay ma u malaynaya aabbo waa tuuganimadoodii u dambeysay sida ila tahay.